6-49 Chelsea eber Tottenham eber Liverpoolna horyaalkii waa noolaysay Liverpool waa iskentay wallahi Man City caawa hurdlaan baa haysa waana lagu yimaaday bay celiyahayaan adiga kufaya u dulqaado nin Southampton dhaafi waaye nin shaqara u maan wahayn ya Allah waa kan Spurs gool bay u soconaysaa Bergwijn isbuuc bay u noqon karaya waani ka maalin dhaweed xilli dambe dhaliya hadda ku daray waxna Spurs maalin wada noqotay kooxda jibisa xataa rikoorkii Man City rikoorka ahaa ee xilli dambe Aguero iyo Cheko ay gool keeneen iyagoo gool lagu hogaaminayo 9-meeyadii kadibna ay laba gool la yimaadeen rikoorkii waxa laaday Spurs oo Steven Bergwijn ayaa rikoorka jibiyay Chelsea iyo habeenku Spurs baan wada fadhinaayo Liverpool waxaan leeyahay hunguri ma ahane hunguri weyn baa haya maalintu way adkaadeen oo waxay garaaceen Crystal Palace maalin ku kacsan yahayo waryahay Loris maxaa ku dhacay innaaba laga qaaday Loris kubaddan inta loo wareejiyay ba halka laga dhaliyay Chelsea goal Tottenham eber wallahi goal fantastic buu ahaa Hakim waxa uu dhaliyay halka kan wallahi maalin wada goal buu dhaliyay waa mudaharasanayo mabda baaldegin caaw xogaa yar dhola cadeeyay xataa istil carabo haysaniga kan wuxuu leeyahay min fasax ama ciyaarsiyan waxaan haysiyay baan hay buu leeyahay inta wada baran uu soo jiiday buusiyad qaroofay dhaliya wallahi waaw wallahi shabaqa gool baa dhex galay arsi xaga u dhagashay buujida shabaqa hadda la xirxiray waxa la siray waxa la siray yaanu baran ka dhex bixin Ziyech baa dhex dhigay dhan kale ka dhigay marka kan goolka fantastic buu ahaa Loris wallahi gool baa laga dhaliyay wasa dhaafi ka war ilaahay amarkii Ziyech balaalugtii saaran Thomas Lukaku uu garaacaya Conte yes buu leeyahay markii afraad xilli ciyaareedku doonaya inuu garaaco Spurs markii bay taariikhdu dhacday in koox ka Silva ayaa markaa dhaliyay waana goolkii labaad ee ciyaarta Chelsea 2 gool Tottenham eber nimankan way iska haystaan wad ogtahay markay iyagu ciyaarayaan inay kuwan badinayaan Spurs dadka qaar iska gaadgaadaan oo xogaa yar Spurs waxa la arkay inay Man City xogaa dhibto laakiin Chelsea carada qadbi koonu ka dhigayaan Chelsea way ku kala baxaysaa Spurs waliba kontomayadii ciyaarta Thomas Tuchel nin caadi ma aha tawbariyaashu way sidaan buu garaacaya tani markuu Chelsea baru noqday min Jurgen Klopp Pep Guardiola Arteta Solskjaer hatta waa kan garaacaya Antonio dhowr mar xilli ciyaareedka waana goolkii labaad ee Chelsea habeenka laad buu ahaa qurux badan Mason dhamaystir fiican buu ahaayo madaxa uu dhamaystiray Silva Chelsea 2 gool